hinda waa hooyo haysata 4 caruur ah isla markaasna indhala waxay ku nooshahay tuulada Yeele oo ka tirsan gobolka Sool isla markaasna waxay la adahay indhaha marka laga reebo in yar oo gabaabsiya ay ku arki karto iftiinka iyo waxa hormarmaraya kaliya inta waxaanu ku booqanay aqalkeeda oo ku yaala tuulada Yeele si aanu u ogaano xaalka dhabta ay ku nooshahay hinda ma hayso wax amala odageeduna sidoo kale ma hayo wax amala waxay haysataa 4 caruur iyadoo noo sheegtay in 4 caruur midkii u horeeyay markii dhashay ay masiibadani haleeshay isla markaasna ay indhabeeshay iyadoo sheegtay in ay tagtay dhaqaatiir kala duwan oo ka yaala qaaradda Afrika kuwaasna ay badankoodu isla raaceen in aan xaaladeeda waxba laga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya iyo gudaha qaaradda Afrika toona marka laga reebo qaatiir Ethiopia oo iyagu sheegay in ay wax ka qaban karaan xaalkaasi hadaba hindo ma aha qof haysata wax lacag isla markaasna waxay ka dhalatay qoys tan yar ah sida ay sheegi doontana waxa ay ku nooleed waageedii hore ay indhaha qabtay iyo hadaba deegaanka Yeele oo ka tirsan gobolka Sool waxayna ummadda muslimka ee atarka jecel ka codsanaysaa in ay deeq la soo gaaraan si indhaheeda wax looga qabto iyadoo indhuhuna ay noogsoonahay inay yihiin shayga ugu qaalisan ama xubinta ugu qaalisan ee bini'aadamku leeyahay isla markaasna ah muraayada koowaad ee bini'aadamka ay wax ka arkaan hadaba walaalkayga muslimka ama walaasheeda muslimka ee atarka jecel ay walaashaadan dhibaataysan ee ay masiibadani haleeshay ee aan haysan waxa qarashka ay isku daweyso wixii kaalmo gargaar la soo gaari karto la soo gaar si walaasheen loogu badbaadiyo indhaheeda magacaaga meesha tagto magacayga hinda waxaad naga wartaa bal imsa carruur dhashay sida hadda aan aragno waxa ka maqan lixaadkii indhaha marka indhaha miyaad ku dhalatay oo sidana mise way ka dhaceen way dhaceen kuma dhalan marka intee sanada hadda sidan hay ilaa 5 adigu 5 ilaa 6 tamaam imsa carruur dhashay oo sidana marka 3 marka hadda yeelaad ku nooshahay maxaad dareemaysaa indhaha ma aragtidu wax ma aragtaa daciif wax yar baan arkaa marka qof soo hormaray dadku wax yar daciifka iyo wax yar aan waxa aan laakiin ku arkay marka ma nabarku ku dhacay baa sababay inay indhaha ka dhacaan mise wax kale may nabar baa ay markii indhuhu ka dhacay maxaad dareemaysaa ilmihi curad ay ku indhabeelay adigu xanuun ilmihi curad ka yimo taas ku indhabeeshay marka inta adoo markaad indhaha lahayd halkan baad joogtay intaadii hore oo dhan marka hore kan joogay dabcan waxaan ognahay in indhuhay ka mid yihiin lixaadka ugu qaalisan qofka bilaadanka uu leeyahay qofkuna markuu indhabeelo kale waxyaabo badan oo noloshiisa ka bedelaya marka hadda xaafadan maxaa camalana waan ognahay inaadan ahayn marka odagaaga ma jooga way dadka ku daawanaya adoo kor soo eegaya dadka muslimka khayrka jecel atarka jecel maxaad ka codsan lahayd dadka islaamna ka codsanaya inay indho waxay qabtaan waxay ilaahay gargaar iyo qabanka ilaahay weydiin karaya wax dhakhtar ma tagtay markii ay indhuhu ka dhaceen dhakhtar badan baa mara marka ma la yiri waxba laga qaban karaa qaar yiri waxba laga qaban karaa qaar yiri waxba laga qaban karaa weelahay kale waan ogtahay inaan Soomaaliya waxba laga qaban karaa dhaqaataro Ethiopia oo baatiri Soomaaliya wax laga qaban karo laakiin inta kale oo dhan adigu marba kaniiniyo wax yar dadka islaamna ka codsanaya inay indho waxay qabtaan waxay ilaahay gargaar iyo qabanka ilaahay weydiin karaya